fadlan haddii aad ka yar tahay 15 sano waxaa habboon inaadan dhagaysan. waxaad moodaa in bulshadeennu ay ku yar tahay wax weydiintu, taasoo u sabab ah aqoon la'aan baahsan iyo dadkeenna oo inta badan wax weyn u arag waxyaabaha qaar sida dhibaatadan oo aynu maanta ka hadli doonno ee loo yaqaano premature ejaculation ama biyo-baxa degdega ah ee waqtiga galmada. dhagaystay, waxaa hubaal ah wixii xun uun laga xishoodo, maadaama ay wanaagsan tahay in aad ogaato wax kasta oo ku dhaca bini'aadamka sida xanuunada kala duwan oo badankooda laga dawoobo. maqalkan maanta waxaynu ku eegaynaa xanuunka loo yaqaano BE oo 65% ilaa 70% ku dhaca ragga adduunka ku nool, iyadoo celcelis ahaan 3 ninba uu hal nin ka cabanayo dhibaatadan la soo darista waqtiga uu qofku guursado. waa maxay premature ejaculation ama biyo-baxa degdega ah? waxaa afka qalaad lagu yidhaahdaa premature ejaculation ama biyo-baxa degdega ah ee xilliga galmada. xanuunkan oo keena in qofka uu awood u yeelan waayo inuu xajiyo biyaha minida ah xilliga galmada, iyadoo dhaqaatiirtu badankoodu ay isku raaceen in ragga qaar ay ku biyo-baxaan wax ka yar 30 second ilaa 2 daqiiqo intaa u dhaxaysa, marka qaarna uu qofku biyaha xijin waayo isagoo weli hawshiiba bilaabin. xanuunkan ayaa noqday mid farabaas ku haya dhalinyarta qarniga nool. haddii aynu sida kale u dhigno, iyadoon la odhan karin waa xanuun weyn, haddana way adag tahay in ninka dhalinyarta ahi uu tago dhakhtar uu soo bandhigo inuu ka cabanayo xanuunkan. dhagayste, sida aynu wada ogsoonnahayba, caafimaadku waa shay muhiim u ah saldhigga nolosha. waxaa suurtagal ah adigoon is ogeyn inaad tahay qof ay dhibaatadani haysato, inaad guursato maalin maalmaha ka mid ah, muddo yar kadibna aad ogaato inaad tahay qof aan kontarool lahayn xilliga galmada lagu guda jiro. taasina waxay kuu sababi karto lamaanaha weji gabax iyo raaxo la'aan, dissatisfaction of marriage. gabadh ka mid ah gabdhaha caalamka ee ku nool ayaa jaraa'id online ah ku soo qortay Soch.com, jaraa'iddaasoo la yidhaahdo Soch.com, ku soo qortay cabasho ay kaga cabanayso ninkeeda, iyadoo ciwaan uga soo dhigtay My husband doesn't satisfy me in the bed, oo macnaheedu yahay ninkaygu iguma qanciyo sariirta. dumar badan oo caalamka ku nool ayaa raggooda ay dhibaatadani la soo daristay, iyadoo ay habboon tahay in haweeneydu ay ninkeeda ku baraarujiso inuu tago dhakhtar nuuca psychological doctor ah ama therapy sexual healing expert ah. haddaba biyo-baxani waxa uu dhacaa waqtiga uu ninku ama gabadhu ay ku guda jirto galmada, iyadoo ragga qaar ay suurtagal tahayba in wax ka yar 1 daqiiqo uu biyo-baxo. warbixin uu soo saaray joornaal ka soo baxa dalka Maraykanka oo loo yaqaano American Medical Association Journal wuxuu tilmaamay in rag badan iyo dumar badan kuwa oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 59 boqolkiiba 14 aanay galmada ku raaxaysan sabab la xiriirta biyo-baxa lamaanahooda awgood, halka boqolkiiba 26 aanay rabin galmo haba yaraatee. dhagaystay, waxaad maanka ku haysaa in aanay xanuun ahayn in ninka biyo-bax badani ku yimaado waqtiga uu ku cusub yahay guurka, taasoo ay ku wacan tahay raynraynta uu galmada sexual excitementga uu hayo, balse muddo yar kadib aanad biyo-bax doonin adigu la qabsan doona. taasina waa caadi oo waxa loo yaqaanaa normal situation. haddaba qaybta xigta ee fiidiyogan waxaan ku qaada dhigi doonaa maxaa keena premature ejaculationka. la soco oo nagala soco Shanta Gees Media si aad wax badan uga faa'iido qaybaha caafimaadka.